Okay. الإسلام اللي ما تنمى يعقوا ويام حاجة نقدر وناسنا ويام يوتيوب ما أنت حاجة نتو حكسي ودونا شيء كذا إني نسعت أو خبيث هذا لكن شيء كذا تان هروق اللي وحدنا أنا ما تنا عيدنا أحسن كل عام أنتم بخير من العالم كأجوك وحرجنا بس برواخو إنا بتقلي إنا كوسو إنا كويدين كوسونتين كلها يو شل ددا صنع وحرجنا إلهي سونكنا ذيك أقبله عماشون أحسن عشان سمستان شل إمالتي كورس إلهي ذيك أقبله لما أنتنا عماشان إلهي نقول أقبله كل جين واحد لنا عيدنا أحسن مر لوات مر سدحات قراوة أصحابته في ملك جبي جور إنه يدين رجينا لما أنتنا عيال كريريس كنا عيد مرة قوة هلان تكله لقى دسه أوكي شكلنا نيتا ناكسي وذنا شكلنا باتا وحكوا سابسن تايم interviewgaygi siduu ahaa interviewgii aan maray laba interview ayaan maray kadib maxaa dhacay mar kale waxaan rabaa muuqaal kale inaan ka sameeyo sharciyada sida ay yihiin sharciyada sida u kala baxaan iyo sharciyada noocyada ay yihiin yani sida u kala baxaan noocyadeena waa isku meeshii laakiin yani waxaa jira sharci la dhaho abid yani wadankan abidka aad degnaaji kartaa ilaa sharci la dhaho deg oo ku meel gaar ah yani permanent iyo temporary yani ku meel gaar iyo abidka waa maxaa la sheeg marxalad gooni ah waaye sharciga ku meel gaarkana waa marxalad gooni ah waaye لما لو انت لبدا شرعي وادين شرحي دونا لكن مقال ku xiga ay noqon doonaan waayo waxa laga yaabaa waqtiga inuu dheeraado idinkana caajis ugu darantaan laakiin taas mar waaniga dhammaantina waxaan rajaynayaa ciid mubaarak kula amaantu biqaar meel walba caalamka ka joogtaan joogi jiro okay sheekadan aan bilaawna sidaan ay sheekadan ku bilaabanaysaa aniga markii interviewga sameeyay wax ku sameeyay sidaan interviewga ayaa la balamiyay waqt meel ay lagu geenayaa yani meel immigration meel qol kamid ah qolka waxaa fadhiya xagaa waxaa fadhiyo qofka su'aalaha ku weydiinayo immigrationka ka yimaade xagaan waxaa fadhiyo adiga haddii aad daayir taano yani wadanka daayir aad ku joogtino waxaa geeskaaga fadhiyo qofka adiga hooyada ama aabaha ku matalayo kula socda iyo lawyerkaaga laakiin qof weyn markaa tahay sheekada waa ay ka duwantaa waayo sida qof weyn markii la iskula dhaqmayo wadankan waxba la isku mareebto ama meelaha markii interviewda la marayo so marka interviewga koowaad wuxuu ahaa interview iska easy yani su'aalo wuxuu ahaa kooban laakiin interviewga labaad ayaa nafta la iska qaadaa yani waxba ma la isku reebanayo interview koowaad sidan ayuu dhacay waxaa la weydiiyay su'aalaha yani inta horta sheekada u gelin waxaa muhiim ah interviewga lagu sheegayo brother waxa waaye sababta wadankaaga uga soo tagtay inaad og tahay يعني waxa uga soo tagi kartaa soobe siyaasadda inaa ka mid ahayd inaa yani dawladda ku jirtay inaa kooxaha iska soo horjeeda ku jirtay inaa adiga maxaa la cunsurid lagu sameeyay yani adiga wax amaankaaga ama nafsadaada qalqal gelinayo waa inaa la timaada ma ahane banooni liiga badiid waa iska soo orday naabro waxaas ma soconayaan waa inaa wax sabab ah la timaada meeshan sabab ay dadkan ku aqbali karaan ay kugu ogolaanayaan inaa wadankooda joogtid inta noloshaada ka dhiman wafaantama soo marka interview ku imaadid intaadan maxaa la interviewga imaadid interviewga waa inuu sidaan ahaadaa sheekada koowaad sheekada labaad iyo sheekada saddexaad sida kale hadaa u dhigo buugga wuxuu leeyahay meel uu ka bilowdo iyo meel uu ku dhamaado isla faana sax yani sheekada waa inay leedahay bilow dhexdhexaad iyo dhamaystir soo waxaa laga yaabaa marka fiir meeshan ayaa lagu gaadayaa sheekadaada markii su'aal interview qaybta koowaad waxaa lagu weydiinaa su'aalo guud ah lagu weydiinayaa su'aalo guud yani tusaale sidee Soomaaliya uga soo tagtay xagee soo martay yaa ku soo caabiyay igraal naqdi yaa ku soo caabiyay maxaa la lacag qarash inta isticmaashay soo su'aalaas lagu weydiinayo hadhowti qaybta labaad markii lagu balaminayo waxay noqonayaan su'aalo si qoto dheer la iskugu maxaa la su'aalo si qoto dheer la iskugu qodayo yani zaid lagu qodayo يعني سؤالها si qoto dheer ayaa lagu weydiinaya yani si waay aragnimo ku jirto si khibrad ku jirto si professional lagu weydiinaya su'aalahaas yani qaybta koowaad waxay hor u dhactahay qaybta labaad oo ah intermissionka filmaanta waa aragtima qayb koowaad lagu tusinaya soo filinka dhamaadkiisa saacada ugu dambaysa meeshaas ayaa filinka dhan ka fahmaysa meesha u socdo soo marka sidaas waay soo qaybta koowaad waxa lagu weydiinaya ama aniga waxa la weydiiyay su'aalo guud sidee Soomaaliya uga soo tagtay maxaa dhigi jirtay yani su'aalo guud yani wax iska caadi ah oo yani qof walba ka jawaabi karo laakiin qaybtii labaad soo qaybtii koowaad waxaa maray maxaa la sheeg bishii October 2015 ayaa qaybtii koowaad maray qaybtii labaad waxaa maray dhamaadkii sanadkaas ama bishii sanadkii 2016 bilowgiisa ayaa maray soo marka fiiriya waqti dheer ay ka qaadanaysaa inaad jawaab ka hesho nasiibkaaga laakiin Scandinavianka waa waqti wadamada isha dadka waqtiga ka dila waqti dheer ay ka qaadanaysaa ina ha email labada midkood lagu dhaho 2015 ayaa wadankan iska dhiibay jawaabteedu koowaad waxaa helay 2016 kala barkeedii 2016 waxaa helay bishii Agosto soo yani waxay qaadanaysaa almost hal sano ugu yaraan 6 bilood soo marka
markii asaas dhacdo adiga waxa laga rabaa noloshaada caadiga inaad wadatid noloshaada caadiga inaad iska wadatid dadka waxay ku dhahaan iskuul ha aadin ilaa jawaab ka hesho iskuul ha aadin sidaa sameynin yani waxaas ka dhac waxaas iskiilo saaxiib wadankan waxa u timid noloshaada inaad horumar aad ku sameyso noloshaada inaad horumar aad ka sameyso so inta aad sugaysid processkaaga war maxaa la sharciga uu ku socdo iskuulka aad luqadda baro yani way adkaan kartaa yani wadamada Scandinavian-ka waxay caan ku yihiin qofka markuu qof weyn yahay ilaa uu sharci ka helo inaa iskuul waxba loo dirin laakiin adiga isku day inaad si shakhsi ah isku barto waayo luqadda meel walba ka baran kartaa online ka baran kartaa YouTube waxaa jiro maxaa la bibliotekada tagi kartaa bibliotek waxa la library aad tagi kartaa waxa ka soo qaadan kartaa buugaag waxa jira dad meesha xitaa dad waayil dadka wadamada waxay aad ugu fiican dadka waayilka waxay sameeyaan si mutadawacnimo ay dadka wax baraan luqadda yani meel ay imaanayaan kafiya wada cabeysaan meeshaas ay kugu sheekeynayaan luqadda ka caabinaya hadii yani xisaabta ku liidato luqadda wax walba ka caabinayaan fahantay waayo dadka waayilka badankood waxa waa dad noloshooda hore waxyaabo kala duwan kasoo shaqeeyo arrimaha gudaha arrimaha bulshada dhexdooda salaan dhaqaatiir ahaa karaan macallimiin ahaa karaan ishaq waxay ahaa karaan dadka xifrado kala duwan leh soo marka qof walba xifradiisa waxay tahay iyo wuxuu dadka ka caawin karaa meesha soo yimaada wuuna ka caabiyaa yani Sweden oo ku soo arkay Jarmalkana oo ku soo arkay xarjiina dhamaan Yurubta kale inay leedahay soo marka isku day inta processkaaga sugaysid inta luqadda aad iska dhistid waayo luqadda markaad iska dhistid hadhow sharci ah heshid wuxuu ku fududaanaysaa isla markii maxaa la sheeg college aad dalbatid ama maxaa la xirfad aad dalbatid ama yani waxyaabo kale markii nolosha hore uga sii socoto laakiin haddii aad luqadda baranin inta processkaaga aad sugaysid zero wata waqtiga ayaa iska dhumaysa bas ma laacna meelaha u taagneed ruta ku sheegaa soo marka aniga 2016 bishii Agosto waxa ii soo dhacday maxaa la sheeg September 2017 waxa maray maxkamadda koowaad jawaabta ii soo dhacday marka Agosto waxay ahayd diidmo yani sharciga la diiday yani waxay dhahan adiga Soomaalinimadaada waa aqoonsanahay yani waa fahani yani shaki ma nooga jiro dadka qaar xitaa Soomaalinimadooda waxa la geliyaa su'aalo shaki yani ma aaminsan in Soomaali taamal qof walba Soomaaliga uu baran karaa soo marka waxay dhahan adiga Soomaalinimadaada anaka shaki ma nooga jiro laakiin sheekadaada xogaa sheeka aan rumaysan karna ma ahan يعني qof walba sabab ay wadankii ugu soo tagayaa soo sababtaada adiga ayaa sir ku tahay soo marka qisadiisaas markay tahay marka migration waxa jirto maxkamad migration ka sareysa maxkamadaas loo dacwada kiiskaaga waxa ka qaadanaysaa racfaan marka aad qaadatid maxkamadaas ayaa codsi u dirsanaysaa marka maxkamadaas codsi marka u dirsatid laba mid ay ku dhigi kartaa hebelow kiiskaaga waan u qaadnay waqti hebel ayaa ku soo jawaabeena ama hebelow kiiskaaga ma qaadi karno waa kiis daciif ah ma ahan kiis adag oo yani u baahan in loo fadhiisto yani dad ka madax banaan migration inay u fadhiistaan isla faanama soo marka kiiskayga aniga way aqbashay maxkamadda waxay ii soo jawaabtay 2017 bishii February ay ii soo jawaabtay waxay dhahday kiiskaaga waa qaadnay September ayaana maxkamadda imaan doontaa taariikhda gadaal ayaa kaaga soo sheegaynaa soo marka 16 September ayaa aniga maxkamadda marka aan maraysidnay waa sida filmaanta aad ka aragtid caadiga maxkamadaha caadiga xaggaas hore waxaa fadhiyo dadka xaakimka iyo dadka arrimaha qoraya kiiskaaga xaga kalena waxa fadhiya dadka migration-ka ka imaada ee ku doodaya hebel qalad ayuu yani wadankan ku jooga wadankiisa inuu celiya yani markay hadlayaan dadkan waxa isdheesaa bin aadan ma ahan miya markay hadlayaan yani sidii u difaacayaan in adiga wadanka laga saaro xagana waxa fadhiya adiga iyo ishaq maxaa la sheeg lawyer-kaaga iyo qofka turjubaanka xagana waxa fadhiya dadka shacabka ee dhageysanaya kiiskaaga adiga xor waa dhigi kartaa kiiskayga inay dad shacab soo galaan maribi hadaartidna dadka oo fasixi kartaa yani imaanayaan ani waxa ku dhahay qofkii imaanaya waxa ku dhahay you welcome brother soo dhaw yani kiiska calacalka daartina ma qashid waa ma kartaa brother ka fiicta dadka loo balamayo soo marka dad ay imaadeen dhowr iyo 10 qof ay imaaday xitaa waxa imaaday kuwa arrimaha bulshada ka imaanaya asgaraneen iyo kuwa maxalla magaalada isku baran oo inta luqadda baranaya dad badan maxallada ay sheeg contact badan ayaa sameeysanaysa marka luqadda baranaysid waana muhiim xiriir inaad la sameysato dadka deegaanka wax badan ay ka caawinaysaa soo marka aan dadka meesha ay imaadeen kiiskayga dhageysteen yani dadkan way farjiceen kiiska wiilkan waa lagu diiday sharciga soo marka waxaan dadkan ay ku og in yani cadaalad darro ee taa wax lagu sameynayo haddana saas ee taa sharciga faraha lama galaan isla garanayso soo marka kiiskayga markii maxkamadda dhageysatay 3 saacadood hal saac bar waxa iska le maxaa la sheeg kuwa adiga ka soo horjeeda hal saac barna adiga ayaa iska loo waxa hadlaysaa oo waxa aragtid ay ka hadlaysaa soo marka maxkamadda kiiskaaga markay dhageysato marka ugu dambeeyay laba su'aal bas lagu weydiinaya labada su'aal waxay rabtaa inay noqon kartaa mafad labada su'aal marka maxkamaddu waa labada su'aal ee go'aanka ku garto soo marka maxkamadda waxa fadhiya 4 qof ayaa fadhida 4 qofkaaneetu waa xaakimka awood u leh maxkamadda markaas yani hadaasan idin qofkaaneetu waa xaakimka saddexdan qof kale waxay ka imaadaan deegaanka soo haddii xaakimka inin israacaan oo dhahaan ha hebel sharciga waa la siinaa sharciga lagu siinaa haddii xaakimka
iyo qof kale israacaan ay dhahaan hebel sharciga waa loo diiday waa lagu diidaya labadan qof haddii ay dhahaan sharciga hala siiyo macna ma soo kordhinayso fahanta hadduu xakiimka inta soo raaco sharciga hala siiyo mar walba ninkaaneetu ayaa wuxuu yahay qofka muhiimka roolka muhiimka la ka ciyaara inaad sharciga heshid adin soo marka aniga 13 maalin kadib waxaa helay maxaa la warqadii oo jawaabta maxkamadda ayaa tagaysaa soo qofka marka jawaab inaad sharciga heshay in kaleeto adiga ay ogaanaya meesha ku ogaanaysaa inta warqadda akhrininba qofku ku siinaya warqadda wuxuu ku doonaa nasiib wacan kusoo dhawaa Sweden saasa lagu dhahaa ama kusoo dhawaa Jarmalka ama meesha joogta adi yani laakiin sidii Sweden saas warqadda lagu soo taagay lagu dhahay sharci ay heshay hambalyo laakiin ani ma liidin saaca marka doonaya warqadda shiba uu dhahay maalinta ku wacnaata bas uu dhahay warqad waa fura xaga fadhiistay waa akhri yani beejka koowaad ma ku qornaanayso koo horta waxa lagu qisada lagu qoraa beejka labaad waxa lagu furaa sharciyada lagu daliishaday beejka saddexaad sababta lagu diiday beejka afraad didmada meesha ku qoran fahmin marka waa akhristaani waxa waa ii sheeg Thomas waxa maqli doontaan qisadeeda inta sheekadan ka sheekeenayo dhowr jeer ayaa Thomas maqli doontaan Thomas waa ninka role muhiim ku leh nolosheeda inta ku noolaa Sweden yani gaalo yahay laakiin waa qof aan wax badan iga caabiyo wadanka inta ku noolahay so Thomas ayaa waxa ku dhahay Thomas sidaas dhacday maxaa la isheeg maxaa sameeyaa wuxuu ciyaaraya ku jirta aan waa maqana hadda Denmark jooga guriga tag ha iswaalin warqadaas iskaga dhiib xaaskeyga maxaa la xaaskeyga iskaga dhiib marka imaan si fiican wada akhri doona warqadaas ha ku mashquulin ana marka waa luqada waa garanaa waa akhri waa arka waxaan inay didmihiin gurigaas ka geey warqada magaalkaas ka gal iska baashaale soo marka waxa dhacaya waxay taa markii didmo lagu siiyo koow laba lagu siiyo hal fursad kala ku banaan fursadaatan aad ay u yartaa boqolkiiba waa 10 ama 5 in yani maxkamadda ugu sareysa wadanka kiiskaaga loo diray ay aqbasho badanaa maxkamadda immigration kale ay ku raacdaa soo marka waxa ogaa marka dad badan oo qisadan ku dhacda aqaana dad saaxiibana ay ku dhacda arkay soo marka raafaanka aqaadanaya ma kunid sameyn yani ma ku qanacsaneen almuhiim naagta lawyerkii iyada aqaaday naagta lawyerkii iyada markay qaaday raafaanka maxkamadda saddexaad ugu sareysa dirtay maxkamadda markay u dirtay maxkamaddu way soo jawaabtay isbuuc gudaheed ma lagu dahay meeshaas way soo jawaabtay xidhaada kiiskan waa kiis aad u daciif ama qaadi karno taas macnaheedu waxay tahay saddex diidmo ayaa saas uga haysta wadanka Sweden soo marka saddex diidmo marka lagu siiyo maxaa dhacayo diidmooyin saddex diidmo marka lagu siiyo isbuuc gudihiisa waxa lagu soo dirayaa warqad nala shaqay oo wadankaaga hooy dib ugu laabo lacag ku siinina wadankaaga hooy dib ugu laabo laakiin dadka Soomaalida badan ama laga tarxiilay Sweden yani waxa jira xeer ka hor istaagay qof Soomaali in la tarxiilay xitaa adiga hadii aad dhahdid aniga ayaa u baahan tarxiil sanooyin ay ku qaadanaysaa in Sweden laga qaado oo Soomaali lagu geeyo يعني قف ما شيء يعني أو كريم تو وين يعني محل كرايم وين جيست ودن كان ضد بدن ديله ما شيء لكن قف صومالي ودن كان لقى ترحيل الصومالي لقيه وليه ما مقال أنت جرتي تحسنوا حي عدنا أنا شخصي أو كونتاكت ولا سمية نينك هستو إذن كحدودية ودن كسويدن نينك سأل الحريري نينك سنو حكول الحريري أنا جو أسي مرايا توماس أنا كاس الحريري وحده هاي الشيء عبد القادر وحوره إنه سؤال كويديو أهرتاس كور وحده لينك إنه ينو صدر آخري ولا لينك يعني قف صومالي ودن كان ملاقي ترحيل كره حتى هذا عبد القادر أصحي ولا ورقدهن وقت أي يعني وين سفارة الصومالي اللي سفارة الصومالي نكمل ولين وقت صدق قنصلية ده لقى في ستوكهولم لكن حلقة الصومالي سفارة من كل السويدن وعلى حتى سفارة الصومالي برلين هذه أساسا صحيح ده هاي أوه إيش عبد القادر جورجي هل يدير ودن كي جوهايو يعني وينقو عادك تودا إنها قف كان أهدرنه وينقو عادك تودا سو مركا أنا جو أنا يا جار جو أنك أجار محيي هاي جو أنك أجار حتى إن أسكت تجي السويدن أقول لابتو مالي أكيد مركي وهره يعني هذا ما دي أكيد سو جو أنك وحقوقان دو تودن كأتجي مركلا بعد مقال كم مقال كحجة يا كوجان دونتا ودن كي أتجي يصابتي السويدن